Munaasabadan baroordiiqda ah ayaa waxaa lagu qabtay xarunta jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga iyadoona ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Munaasabadan ay ujeedka waxay ahayd in loogu duceeyo Allaha u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Riso oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Dooxa ee wadanka Qatar iyadoo halkaasi loo geeyay dhaawac ahaan isla markaasna dhaawaca uu ka soo gaaray qarax ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay dadkii munaasabadaasi ka soo qayb galay ayagoona qaraxaasi cambaareeyay waxaana sidoo kale dadkaasi u duceeyeen dadkii kale ee ku dhintay qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir. jannada waa Allah ka ogadhiga insha Allah taala waa mahadsantihiin meesha inta ka soo qayb gashay dhamaantiinaba mar waliba iyo martaani waxaan u rajaynaynaa insha Allah taala jannada ina Ilaahay waasiyo. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتبع قيراننا تعسكيري قول حمد ضمير كل عليه ولكن عبد الرحمن عمر عثمان وأهم يركي قبل كبنات وأنا كسور تعسياننا وأنا كحنا هجيري إلهي نحن أقبرينا هول قرن بوكشري إنه إلهي ودم بدافو marka kusimaha safaaradda Soomaalida ee wadanka Turkiga fadhigiisuna yahay magaalada Ankara ee wadanka Turkiga Bishaar Ugaas iyo waliba gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga Sheekh Maxamed oo ayagana munaasabadaasi ka hadlay ayaa cambaareeyay qolihii geestay qaraxaasi isla markaasna waxa ay u duceeyeen Allaha u naxariistay gudoomiyihii maamulka gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Riso. runtii waa la kala horeeyaa laakiin waxaan u rajaynaynaa sanadkiisa inuu aqbalo laakiin waxaa ugu wanaagsan dadka madaalimta leh ama dadka guryaha laga haysto dadkii noocaas ahaa uu dadkii soo celiyey waxoodii u soo celiyey uu dadaal geliyey isagana allihii boqorka ahaa waxaan uga rajaynaynaa oo ka baryaynaa inuu naxariistiisa ka waraabiyo qabrigiisa u nooliyo kitaabkiisa midigta ka siiyo in mu'mina ummadda dhan uu weysu ahaa ilaahay subxaanahu watacaala markana ha naxariisto ilaahay eheladiina samri iyo iimaan anagu dhan ilaahu naga wada sii إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت. Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow warbaahinta qaranka magaalada Istanbul wadanka Turkiga.